باشا هذا شرماكه oo maanta xafladan quruxda badan isugu timid oo wada shanaysa danaheeda oo suldaankeena guud meesha noo fadhiyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh salaanka bacdi waxa halkan faahfaahiyay oo soo jeediyay danta meesha isugu yimid suldaanka beesha raadire oo sheegay in midnimada beesha meeshan isugu yimid oo danta beesha la hagaajiyo la dhiso oo sida dadka walaalaha nala oo isku qabiilka aan ay wixii sidii ku nooliyaan ku noolaano baa lagu gooshan loo dhigay hadii tahay mid dhaqan iyo mid qaf dhibaataysan iyo nin walaalo ah maanta xil doonaya maantana boqol baa ku fadhina halkan 200 oo kale magaalada joogtaa waxa keenay intaas waxa noo suurtagal waayaan waa tala guud oo meel liweeye marka suldaanka goosha noo qalqalay waa mahad celinaya iyo nodowka xigeenka iyo dhalinyarada aqoon-yahanada oo barnaamijka aan waday waxa kale oo mahad siinaya dhalinyarada beesha raadiro aqoon-yahanada ah oo shaqada aad u adag qabtay oo aqoon cid u sameeyay oo komaadna qaarna shaqeynayaan waa mahad celinaya dhalinyaradu waa in si la bajibaaraan sidii shaqada u wadeen annaguna waa ku garabseenayna hadaan nahay mid siyaasi iyo mid ah nabadoon oo in uu garabsiyo aaminsanahay oo arinta hore loo sii dhaqaajiyo midda ah wadatashiga oo beeshu meesha isugu timid wadatashiga suldaanka baa kala gudiyo noo magacaabi doona waxaa qabaa suldaan intaan waa tolkii waana waxay soo ajiibeen goosha aadhigtay guddigaasna ina adigu wixii dhaxgashid beesha oo ka magacaawdid waxa qaba ina intaas u madax banaantahay aanu fakarhaan iyo siyaasi ahaan taas waa mid guud oo beesha raadire mid gaaraaneed oo anugu musharaxnimadeyda reeylowle iyo ku shaqeeyay iyo lagu jiro halkan gobol badan baa soo marnay oo mid hilowle gaar ah iyo mid guud oo lagu jiro ayuu garab taagan yahay raadire intooda badan oo arinta wax ka waday dhalinyaro iyo suldaanka iyo culmaduba waxa marka doonaya sidii la garab taagnaa in la sii garab istaago oo gabdhaha walaalaha oo ka maqnaa maanta fadhiya in ayaguna qaybtooda ka qaataan hadii tahay saxaafad iyo hadii noqoto tashkiilin iyo qof walba meesha uga aadan yahay inuu ka qaato xilkaas sidii uu guuleysan lahaa laga shaqeeyo raadire dalka iyo gudaha iyo dibadda inta joogta intaas waa codsi guud oo beesha u soo jeediyay intii ka maqneed shirarkii hore oo hadda joogta midda labaad waxa la rabaa wax kasta oo wixii ku imaan karaan qafkii tola oo wax raadinaya anoo maanta daahirana alxamdulillah hadii awaayana rabbil caalamiin oo hadda u dhawmahay laakiin waxa la rabaa isku dayga qof kasta oo raadin oo hamil in la garab istaago aan niyad laga dilino tolkiisa du geesaha ka fadhiyo haduu helana waa ku qancaya haduu waayana waa qancaya haduu mar tol haysto ninku laakiin hadii ninka xogaa xariga loo dabciyo nin tolkiisa la socon meel gaarahay dadka aragteen oo xeelka ku hayo reeylowle oo kuraastii naga dhacaysa kuwada fadhiya oo ninkii 5 iyo 4 u haystaan gurmad iyo tolkood iyo geesaha laga galay ku heleen marka adinkuna waa ku maasantiin walaalaha hadda sidii leela gurmanay dalka iyo dibadda waan kaga mahad celinaya midnimada beesha raadire waa waajib in laga shaqeeyo oo qof kasto hadda raadire halkan jooga iyo inta maqan in la gaarsiiyo qof walba soo xil saaro kulay hadii hadda laba nin baa cid odayaal oo suldaanka iyo Ismaaciil ku xiga kaligood waxa uu qaad ma dhaqaaji karaan hadii qof walba meesha uu joogo shaqada ka wadin oo gabdhuhu shaqada meeshooda ka wadin oo hadii wax qaldaan odayaashu laftigooda waxa loo yeeltaa u fariisana u yeelan karaan halkaan khaladeen suldaan iyo halkaan wadan khaladeen waxba sax maaya marka waxa qaba in la garab istaago shaqada garab istaagno raadire hadda beesha raadire shaqadeeda istaajino wax kasta waa noo hagaagayaan midka xanuunsan baa daawaysan karnaa ka jiran baa ka dhinta xabaalo karnaa kii walaalo wax doonaya matqana waxa lahaya isku xirnaanshaha tolku waa mid goobaad oo meesha aan rabno ku mari karno marka walaalayaal hadda anigu taas waa soo jeedinaya waxaana u mahad celinaya walaalaha dibadda jira oo aad nagu dhiirigeliyay
inaan kulamo samayno oo tolka isku xirno ma hadda labaadna ragga walaalaha odayaasha xamar jooga oo ayaga laftigu qadka suldaanka la hadlaayeen oo ma hadalina gudigana gobolka mid waxa laga rabaa suldaanka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh.